هو نسو آخري تفسير لكن برجع ورا تفسير تفسير مطولة وآد الدار إن شاء الله الدور كان حسكت يعني النقطة تفسير آد وقاضا وحانا كسو حيقان دونا انت بدن تفسير كعانكا تفسير الجلالين تفسير الجلالين وتفسير كوغو قاضا تفسير هذا القرآن علماء الإسلام كقرآن waxaan ka mid yahay tafsiirada ugu caansan tafsiirul jalalayn tafsiir aad u gaaban culimadu waxay yiraahdaan madkhalun ilaa cilmi tafsiir waa albaabka laga galo tafsiirka ee ardaydu akhristaan markay doonayaan inay tafsiirka bartaan tafaasiirta quraanka kariimka habka loo fasiro aad u kala duwan berigii hore culimadu waxay xoogga saari jireen luqadda carabiga inay ku fasiraan quraanka kariimka waxay kale xoogga saari jireen culimadii hore markay quraanka fasirayaan inay quraanka isaga isku fasiraan waayo quraanku isaga is fasiraya marka waxa la yiraahdaa tafsiir bil ma'thur culimadii iyaga ku xigay sida imaam tabari oo kale culimadii ku xigay iyagu xoogga waxay saari jireen at-tafsir bil ra'y إن الرأي يكون فسران لكن هو الرأي قال له أقول يحي يعني خلاف سنين دين الإسلام تفاسير تاسنا حلقة وحوقوا عن سنة تفاسير تي قرآن علماء دي قرون تي دحين وحكى الله هذا يمي علماء كلا يقولنا قرآن كهب كدوان مفسر تري علماء دي صوفيا مع علماء دي أهل الكلام marka ayaguna waxay xoogga saari jireen in quraanka macnihiisa la dhuuxo oo macnaha ruuxda la dhiso oo quraanka la dhuuxo iyadoo macaanida baatinka la xoogga la saarayo culimadii xilliga waxa ugu caansanaa imaam al-alusi waxa la yiraahdaa kitaabkiisa mafatixul ghaib ayaa la yiraahdaa mafatixul ghaib waa kitaab caan markaasuu xoogga wuxuu saaraa xagga ruuxda iyo macnaha quraanka berigii dambe quruntan dambe culimadu tafaasiirta qoreen waxay iyaguna xoogga saareen in quraanka ay ku fasiraan waaqica hadda lagu noolyahay waaqica waxaana ugu caansan tafaasiirta kitaab la yiraahdo tafsiirul manar Muhammad Rashid Rida waxa kaloo ugu caansan tafsiirka caanka ah دلال القرآن في تفسير القرآن وقرأي سيد قطب رحمه الله تعالى مركا علماء ضمبي يبحوك وحي صاران إن القرآن كن نقضه مدد كهذا وواقع وفسر علماء يبحى ترى لقد عربي بحوك سعر والقرآن كهب لقد كفسره لقدها عربيها waxa kale jiraan hilmaamay culimada fiqiga xoogga saara quraanka fiqiga ka soo saaraan iyo ahkaamta waxa la yiraahdaa ahkaamul quraan ayaa la yiraahdaa kutubtaan inagu insha Allah ta'ala waxaan isku dayaynaa inuu noqdo maadaama ay arday jirin oo wadanadan reer galbeedka arday ma jirto cilmiga sharciga raacata arday lama hayo laakiin waxaan isku dayaynaa inuu noqdo tafsiir wacyigelin oo waaqic maaragtay واقع إن شاء الله إنه كتب بقنا ينولشين المعلومات كنا إنه كتب بقنا القرآن الكريم وحنا كده يا معلومين إنه نقدر معنا جود علماء واحد ترى تفسير كوكو فسر بالحرف تفسير الحرف بالله إن كلمة كستولو الراديو كلمة لما معناها في الصومالي تفسير كانوا الجف يعني علماء قرنوا واحد يفسر عن القرآن كسي جود لكن كلمة هذه اللي راح الله فسره سيد الشيخ هرقيسة كنا الله أيا عام كوا الشيخ عثمان حسين كلمة وفصيرة علماء كلامنا سيجود ساشيخ تير الله خليل سيجود ونبيو معنا مركا هنا إن شاء الله تعالى وحين نسكد يدونا إن نكرر تفسير عام كتاب كان جلالين كا أدام وحي يريد فايدة عام كا دون كودان عام كا لابا شيخ واحد قرأ شيخي برقي هوري قرأ waxa la oran jiray Jalaaluddin al-Mahalli ayaa la oran jiray Jalaaluddin al-Mahalli wuxuu dhintay 1864 taariikhda markay ayuu dhintay wuxuu ka soo bilaabay isagu tafsiirka suuratul kahfi uu ka bilaabay
إلى سورة الناس فاتحة وكدر وشن يتونجس انتو كهف كبلاد أيو لا كل عدو برب الناس كي فاتحة وكدر waxaa la yidhi markuu halkaa maraya isagoo jecel inuu haddana baqara kasoo bilaabo ayuu dhintay u geeriyooday waa 846 u geeriyooday waxaa dhashay xilligu isagu noolaa nin la yidhaahdo Jalaaludiin marka labadaba Jalaaludiin al-Maxalli iyo waxaa la yidhahdaa Jalaaludiin as-Suyuuti tafsiirkiina maxaa loo bixiyey Jalaalayn labadoodii magacba la isku daray waa tafsiir Jalaalayn labadii sheekh Jalaalaynka wadaadkan kale la yidhaahdo Jalaaludiin as-Suyuuti waa wadaad caan ah wadaad la mid ah ama sheekh la mid ah dunida muslimiinta waa ninka wax walba kitaabka qora xitaa waxay yiraahdaan culimada qaar kutubtiisu kala garan waayay inta kutubta loo keenaa la yiraahdaa kitaabkan adiga alifay kaasoo garan waayay heerkaasoo gaaray inuu wax kasta wax ka qoro waxa la yiraahdo waxa ku yara adkaa dhaxalka ay yiraahdaan dhaxalka ku adkaa oo waxba ka qoray laakiin wax walba loo qada wax kasta waa sheekh ugu cajiibsanaa waana nin caan ah adduunka oo Suyuuti isaga wuxuu dhashay 849 ayuu dhashay wadaadka arno wuxuu dhintay 846 marka wiisa soo gaareen ma hubo laakiin waan u maleynayaa inuu wax ka bartay wadaadka hore inuu wax ka dhigtay waayo wadaadkan isagoo 17 jir uu bilaabay kutubta qoran imaam Suyuuti wadaadka dambe wuxuu dhintay 912 buu dhintay 912 ayuu dhintay isaga ayaa dhameystiray wadaadkii hore tafsiirkiisa wuxuu ka bilaabay baqara ilaa suuratul kahf halkuu isagu ka bilaabay wadaadkii hore uu dhameystiray waxa la ka cajiib la yaab leh sidii wadaadkii hore u qoray si lamida ayuu qoray si lamida oo ka duwaneen uu soo gaabiyay sidiisii uu qoray bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka bilaabi doonaa suuratul faatiha وأيضا القرآن كله كبلنا سورة الفاتحة وسورة الظهر هي القرآن مقعية بضم بالله هاي وحل إلى سورة الفاتحة القرآن كله كبلنا وحل إلى هذا الكتاب وقرآن كله كهل يوردن بسوقتي وحل إلى هذا 7 المثاني تضوض صلى الله عليه صلاة صلى الله عليه ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لكي لهيلي سورة وحي كسو دكتي magaalada Maka ayay ku soo degtay markii rasuulku hijroonay wax yar ka hor ayay soo degtay culimada qaar iyaguna yireen Madiina ku soo degtay way jirtay qaar waxa jira iyaguna yireen labadaba way ku soo degtay Madiinana way ku soo degtay markii qiblada la bedelay Makana markii hore ku soo degtay way yiraahdeen laakiin waxaynu ku soconaynaa inay ku soo degtay magaalada Maka suuradda waxay ka koobantahay 7 aayadood marka lagu daro bisinka bismillaahir rahmaanir rahiim hadii lagu daro waa 7 aayadood hadii bisinka laga jaro leeyahay bisinku kuma jiro aayadda 7 waxay noqonaysaa ghayril maghdubi calayhi ayay noqonaysaa hadii bisinka lagu darana siraat alladina an'amta calayhim ghayril maghdubi calayhim wa dhalin wa aayad dhammaystiran marka 7 aayadood bismillah marka la socdo waa 7 aayadood bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku bilaabaynaa magaca eebe naxariista guud adoomaha dhan naxariista gaal iyo muslimba iyo wax kasto nool arrahiim allah uu naxariista si gaara dadka muuminiinta marka laba tilmaamood oo ilaahay leeyahay waa naxariis waxa la yiri rasuulku kaleey salaatu wasalaam birgii hore waraaqaha wuxuu ku bilaabi jiray bismika allahumma markii dambu ilaahay soo dejiyay bismillah majrayha wa mursaha ayuu rasuulku adana ka dhigay bismillah in waraaqaha ku bilaabo waraaquhu diri jiray dadkii madaxda iyo boqorradii markii dambe ilaahay adana soo dejiyay aayadda kale oranaysa innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmaanir rahiim ayuu rasuulku adana bilaabay inuu waraaqaha magac dhameystiro bismillahir rahmaanir rahiim marka hore wuxuu ku bilaabi jiray bismika allahumma markii dambana bismillah markii ugu dambeysay aayadda ugu dambeysay soo degtayna uu dhameystiray bismillahir rahmaanir rahiim marka waa sunnah bismillahir rahmaanir bismillah waxaan ku bilaabayaa magaca ilaahay arrahmaan dadka oo dhan naxariista gaal iyo muslimba naxariista guud arrahiim si gaar ah ugu naxariista dadka muuminiinta الحمد لله إلهي بان حد
معناها waxa ka maqan oo loo soo qadaraya qulu waxa tiraahdaa alhamdulillah ilaahi baa mahad mahadoo dhan ilaahi baa iska leh rabbil caalamiin allah caalamka oo dhan rabbiga u ah ee soo rabeeyay ee soo koriyay ee abuuray ee ummad ilaaha samahad oo dhan iska leh marka caalamiin waa caalamul jinni wa caalamul ins oo la isku daray marka la isku daray jamca laga dhigayo ya iyo nuun baa la raacaya caalam caalamiin marka waa jamca waa caalamul jinni wal ins الرحمن مقع إلهي الرحمن كسجود ضدك ونحريستا الرحيم الله سجار ونحريستا ضدك مؤمنين مالك الله معمولا يوم الدين مالك يوم القيامة إله معمولا يا معرينا يا إكل الدبرية مالك يوم القيامة معمولك كعنتي سكترتو إله حسن محمد sida ogsoontiin qiraa'ada waxa jirto oranaysa malik hadii la raawo magac waa boqorka weey malik iyo midin allah maalinta yawmal qiyaamaha boqorka ka ah ila boqorka lama jiro liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar boqorka lama jiro adduunka boqorka way jira laakiin maalinta yawmal qiyaamaha boqor kula jira allah hadii la raawo malikna waxa weey waa allah maamula yawm الدين maalinta yawmal qiyaamaha ملكي الله بقرك كاه يوم الدين وأنت حسابت القيامة إياك أديك أو كلية أي نعبد إله كعابدنا وإياك أديك أو قرى أي نستعين كالمك ويدي سنين مركا والله سوهر مري مفعول كبير سوهر مري نعبد إياك ونستعين إياك ساسا يحب لكن إلهي سوته وكله رمري وحي تحي عبادة waxa iska leh oo kaliya ilaahay cid kale ma cid kale oo la wadaaji karaan ma jirto iyaaka adiga oo qura nacbudu ku caabudayna wa iyaaka kaliya nastaciin ku kaalmaysanayna wan gargaar iyo kaalmo ku weydiisanayna ehdina waxaan ugu hanuunisaa siraada jidka almustaqim toosan siraada alladina jidkii nagu toosi kuwii ay mareen أنعمت عليهم أظن عيسى آيات كلا ترتورن من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وكوكو إلى هم العمي والنبي يا الصديقين يا صالحين يا شهداء صراط الذين إلى وحن مرساتك كوي مرين أنعمت عليهم أظن عيسى هنونك يا إسلام لماذا أتصيصي غير المغضوب عليهم إله وحن نقبت بادسا ونقيس مريسا تلكي مرين كوي المغضوب عليهم هذو عرضتي كوي عرض هذا كل عرض وعيد كستو عرض إلهي كل عرض لكن علماء مفسرين توحي العرض ويهود ولا الضالين يكوى اللنسان يقول جاهلين وانا أقول لحين إلهي كل عبد أقول ضره كعابده وكريستك يا نصارى يهودنا يجوا علمي له أو أقونتي له أو قرنيا دين الإسلام كإن حق تاعي أي دين أو يدفرن مركاو سجود لكن وحفي يعني سجود لو فسره غير المغضوب عليهم إله وحنا قبل بادي ساتشيد كيمرين كوا ضعرات عيد كسر ضعرات كوا إلهي القرآن ككل شيء هو عرضه حكمنا كوا ضدك الدلاء ضدك الله بغير حق ترك الله قف ضدك الدلاء ولا الضالين يكوا اللمي حق جيس مري بعضي ذا كسرن عد عد كسر بعضي كسرن إله كوا نقبل بعد مركز صورته هذا في فرصتان وسط حقيقه قيبتك هو بعد أمان إلهي الأمان والله كبير إليه أمانتا iyo tilmaamaha wanaagsan oo lagu shabaheeyay tilmaamaha ay leeyihiin makhluuq sida alxamdulillaah rabbil caalamiin arrahmaan arrahiim maaliki yawmiddin saddexda aayadood waa amaan ilaahay baa amaanaya waxaana loo sugayaa tilmaamaha ilaahay leeyahay saddexda ku xiga iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin labada aayadood ilaahay waxa loo barax tirayaa cibaadada iyo kaalmada in weydiisto kaliya marka waxa la yiraahdaa waa al-ikhlaas al-ibadati wal-isti'anati lillah wa qaybta ugu dambeysana waa ducaa wa duco ilaahay la bariyo
ilaahuna hanuuni jidka toosan jidkii ay mareen kuwii aad u nimcaysay naga badbaadi jidka ay mareen kuwaad u carootay iyo kuwa lunsan ee baadida ku sugan. suuraddaas markay dhammaato waxaa la yidhaahdaa aamiin. aamiin waxa weye macnaheedu ilaahu naga aqbal ducada weye, laakiin kama mid ahaa suuradda, kama mid aha. sidaa awgeed qur-aanka laguma qoro aamiin, kuma qorno, si aan loo moodin inay ka mid tahay suuradda faatixada. waa duca weye aamiin. diimihii horena waa la isticmaali jiray, kiristanka iyo yahuudada. aamiin waa duca. suurat albaqara waa suuradda ugu dheer qur-aanka, waa 2 juz iyo badh. suuraddan waxay kusoo degtay magaalada madiina ayay kusoo degtay, marka laga reebo aayaddu ilaahay leeya wataquu yowma turjacuuna fiihi ila allah. aayaddaas waxay kusoo degtay magaalada maka, xajatul wadaac bay soo degtay, xajkii ugu dambeeyey rasuulku waa xaj. laakiin suuraddu sida caadiga waxa weeyaan madiinay kusoo degtay, waa suurad madaniya, waana suuradda ugu dheer. suuraddan waxay ka hadashaa iimaanka iyo maaragtay gaalnimada, waxay ka hadashaa dadka munaafiqiinta, waxay ka hadashaa jihaadka, waxay ka hadashaa axkaamta islaamka, waxay ka hadlaysaa qiyaamaha, waxay ka hadlaysaa rususha, qisaska nebi muuse qisadiisii bay ka hadli doontaa. waxyaabo badan ayay ka hadlaysaa, axkaam badan. marka insha allahu tacaala waynu dul mari doonaa. bismi illahi raxmaan raxiim. alif laam miim waa 3 xaraf. alif laam miim, alif laam miim waana 3dii xaraf ee rasuulku tusaalaha ugu soo qaatay markuu ka hadlayo fadliga qur-aanka kariimka. xaraf kaste ood akhrido waxaad ka helaysaa 10 ajar. markaa rasuulku wuxuu yihi alif waa 10 ajar, laamku 10 ajar iyo miimka waa 30 ajar. xuruuftan culimmadu waxay isku wada raaceen badankoodu, culimmada qaar fasiraa way jiraan, laakiin badankoodu waxay isku raaceen in la yidhaahdo ilaahay baa garanaya wuxuu la jeedo, aqoonteeda. allahu aclamu bimuraadihi, saasay idhahdo. laakiin culimmada qaar fasiraa way jiraan, kuwa ma sheegi doono insha allahu tacaala, waqti uma hayno. alif laam miim allahu aclamu bimuraadihi bidalika, ilaahay baa wuxuu la jeedo. laakiin kolley waa ijaaz, qur-aanku inuu mucjis yahay ayay ku tusinaysaa, oon qur-aanka oo kale la samayn karin. xitaa gaaladii waqtigii rasuulka noolaa way isku dayin inay qur-aan oo kala sameeyaan, laakiin dee qur-aanka ma gaari karaan. aayad ka mid a xitaa ma keeni karaan buu ilaahay 10 aayadood oo qur-aanka la mid a ma keeni karaan. carabtu iyagoo garanaya luqada carabida ayaa haddana waxay garan waayeen alif laam miim waxa laga wado. marka waxay caddeynaysaa inuu qur-aanku yahay mucjiso. dalika kani alkitaabu qur-aankani, dalika waxa lagu tilmaamaa waxa fog, laakiin waxaa laga wadaa hada ay hada kani alkitaabu qur-aankani laa rayba fiihi, shaki kuma jiro, waa xaq wey. qur-aankan maxamed akhrinayo waa xaq, shaki ma laha, shakina kuma jiro. laa rayba fiih, wax shakiga kuma jiraan. hudan hanuun buu yahay lilmuttaqiin, kuwa ilaahay ka cabsada ee ilaahay wuxuu amray la yimaada, wuxuu ka reebana ka fogaada, kuwa hanuun buu yahay, buu hanuuninayaa. aladiina waa kuwa yu'minuuna rumaysan bilgaybi waxa maqan ee ilaahay naga qariyay, sida qiyaamaha, bacsiga, isa soo saaritaanka, xisaabta, wax kastoo inaga maqan, saacadda, dhicitaanka saacadda, waxaasoo dhan waxaa la yidhaha gayb, waa wax maqan. marka qur-aanku kuwa hanuunka u yahay ilaahay ka cabsada, aladiina yu'minuuna waa kuwa rumaysan bilgaybi waxa maqan qeybka, wa yuqiimuuna asalaata, salaadana ooga, iyagoo si saxa u tukanaya, khushuuc iyo arkaanta ilaalinaya. wa mima rasaqnaahum waxaanu siinayna iyo risqigii aanu ku arsaaqnayna yunfiquuna wax ka bixiya, oo dadka masaakiinta quudiya iyo dadka baahan. waaladiina waa kuwa yuuminuuna rumaysan bimaa unzila ilayka,
قرآن كالغوغو سودجي نبي محمد بما أنزل إليك وحد غوغو سودجي ووحيغا وما أنزل يكي لسودجي من قبلك كتبتي أديك هرتا لسودجي وكور رميسان سيدا إنجيل يا توراة وبالآخرة ما أنت وقدم بيسا دون كان هم يوقنون ويقنسيهم ويرميسيهم وما أنت آخره قيامه دعيه وحلوه بحياة آخرة وحويه وآخر أيام الدنيا وما أنت وقدم بيسا دون كان ما دونك أولئك كوا سبيل الله على هدى هنون بيكسوين من ربهم وإلهي ربي جيسا ربي جوه وقطيقي هنون حق إلهي كهذا أي كسوين وأولئك كواسي هم المفلحون وكوا اللي يباني الدنيا آخرة وكوا قوليستين وحاني كو قوليستين والصفات كاس يبتل المامها إلهي كتل المامي أي كسفيسين آياتها هوري waxay yiraahdeen culimadu afarta aayadood ee hore waxay ku soo degeen dadka muuminiinta labadana aayadood ee ku xigaan waxay ku soo degeen gaalada 13 aayadood ee ku xigaana munaafiqiinta ka hadlay labadii aayadood ee gaalada way koon inna alladheena kafaru kuwa gaaloobay ee xaq diiday sawaa'un calayhim nabi maxamed waa iskugu mid iyaga عليهم واسكهم أأنذرتهم هداد الدكتور والحق وشيكتور أم لم تنذرهم يهدانا الدقين به وذكر عفته وأن الحق الشيكين مرني إيمان كرد ما يبي إلهي سبحانه وتعالى ما نصح مننا يا وصل أبي جهل يا أبي لهب وكلا أي شيخ كفسر كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما يوحي لمذا قالت ولماذا قالوا حلو وحي سودك في غزوة الأحزاب هي كسودك marka gaalada de nabiga ilaahay baa u sheegay inaanay hanuuneyn oo gaalnimada ku dhimanayaan laakiin gaalada de hadda nool iyo kuwa kale laga quusan maayo oo oranaysi sawaa'un calayhim anzartum waxba ha u digina maaha waloo digayaa xaqana loo sheegay laakiin kuwa ilaahay baa rasuulka u daalacsiiyay oo u sheegay inay gaalnimo ku dhimanayaan لا يؤمنون إيمان ما يلانيان بالله إلهي رسول كيسا منا مرمين أيان ساسي كل من أيان هداد الدكتور يهدانا الدكتور هداد حقه وشيكته يهدانا بالشيء ختم الله إلهي ويستبدي صرت إلهي وحده ختم الله إلهي راحن درابي على قلوبهم قلوب تودا راحن درابي ولا قفلي وحقل يا متره وقفلين قلوب تودا وعلى سمعهم مقل كوغنا وو اودين yahay waa la ooday maqalka dhagahna way ka ooday waxa ma maqlayaan ay xaqi way maqlayaan laakiin ma fahmayaan la yaqilun ma fahmayaan wa ala absarihim indahooga iyo aragtidoodana ghishaawatun aad baa ka saaran indahana way la'ay oo aad baa ka saaran waxa ma arkayaan xaqi ma arkayaan waa koonka iyo ma aragtay ilaahay sidoo abuuray koonkan iyo awoodiisa وكقرصونت ماركيا إنها عاد كسارة والله يجا وحوصنا هذا عذاب عظيم عذاب وين وتشوكتاء أيام أنت يوم القيامة وصلنا ومن الناس تدك وحكم ذا ومنافقين تي هكذا كبلامية صدحيتهم كايدو هكذا كبلامية المنافقين ومن الناس تدك وحكم ذا ما يقول مدوران يا آمنا بالله إلهي بامر رمين إسلام نمو موتي السنة dadkii muuminiinta markuu soo dhex galo wuxuu oranaya anigu muumin baan ahay aamana billah ilaahi waa rumaynaa wa bil yawm al-aakhir maalinta aakhirna waa rumaysanahay saasay ku oranayaan dadka muuminiinta iyagoo muujisanaya iimaan laakiin caloosha iyo uur ku jirta waxay ku qarsanayaan waa gaalnimo iyo nifaaq ilaahi wuxuu wama hum bi muuminiin ma aha muuminiin waxay qarsanayaan aniga rugbi ilaahi muuminiin ma yukhadi'una allah waxay rabaan inay ilaahay kaarteeyaan walladina aamanu iyo dadka muuminiinta ah inay kaarto u dhigaan khiyaameeyaan bay doonayaan bi ilaahay subhanahu wa ta'ala de ilaahay khiyaameyn karaa dadka muuminiinta way khiyaameyn karaa wama yakhda'una waxay khiyaameynayaan bi ilaahay cid kale ma khiyaameynayaan illa anfusahum kaartaday wadaan waxay dib ugu soo laabanaysaa waa naftooda maalinta yawmal qiyaamaha khiyaamaday wadaan ونفتوذا أي كسر العظمة وما يخدعون مخيامين أيام
إلا أنفسهم نفتهم بخيامين ومعناته يوم القيامة واحد سبيا والنار وما يشعرون ما ندر إنسان الله سبحانه وتعالى نصيب ظهره ما ندر إنسان إن نفتهم بخيامين وحيوها يستان إن يددك مؤمنين تكعقل بديين وخيامين مركي دحي ما دانا يورانا مؤمنين بارنحي markay guryahooda ku laabtaan way dacaayadeenayaan oo way caadayaan dadka muuminiinta fii quluubihim quluubtooda waxa ku sugan buu Ilaahay marad maskaxda ka xanuunsanaya oo qalbigooda iyo quluubtooda xanuun baa ku jira buu Ilaahay waa marad ila gaalnimada iyo munaafiqnimadu waa xanuun qalbiga ku dhaca iyo ruuxda marka ruuxda iyo qalbiga ay ka bukaan fazaadahum Allah إلهنا ووسي كردي مرضا حنون بوغسي در وكسي در وآي مركا غيهين مركا هوري أياني أهين ضفي عن وإسلام نميو ماركتي دن نمو دشي معها قال نمو أيو دشي حمانتا أيو دورتي إلهي كما قردرنا عقل بالسي قرار بالسي اختيار بالسي لكن حي دورتين إن النفاق نمو كدقنا يقال مركاسا إلهي نمحو كردي حنون قلبك إنه كسي حنون صدام فزادهم الله مرضا إلهي بحنون كردي ومصر حنون ولهم إليهم عذاب وصلنا هذا أليم كلل ما أنت يوم القيامة عذاب كلل بما كانوا يكذبون صلبت عذاب كاكو كسبادين وحوي حق أي بينيين إلهي كما قردرنا لما نضل منه صوت عذاب كانوا كسبادين waxay tahay bima kanu yakdibun wa adunki sababta ay u beeniyeen xaqa iyo rasuulka iyo nifaaqa ujeedada u doorteen ay cadaabka ku kasbadeen aadka u kalo ilaahay inuu kan galo subhanahu wa ta'ala اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الكريم إن شاء الله وإن فضوضين دونا وحسكدنا إنا نحصلنا بوق يبط عمل لي بوق دقدقة لكن دقدقة إن شاء الله لها مهم كون بالمتابعة وإحنا كون بضعنا نسطح الشيء إن شاء الله عاوي يحبين ضمبه يسنين لكن واحد سكده يعدين صوتك عشان نحبهم والباخر سو هرو قدام هذا إن شاء الله مهم ما هاي إن يدتكو ده يمدان مهمة أنت تمادون بالله لقى هل خوفنا عن صوت إن شاء الله يا ما ينبغي ما تشرت فدي كدر بك دارتين فدي كدر الله دار